dowladda Ingiriiska ayaa markii ugu horeysay ka hadashay doorashada madaxtooyada ee Somaliland ka qabsoontay 13 November sanadkan 2017 doorashadaasi oo uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici war qoraal ah oo soo saaray wasiiru dowlaha Ingiriiska ee barwaaqo sooranka ee dalalka Afrika Master Rory Stewart ayaa lagu sheegay in dowladda Ingiriiska ay ka go'an tahay taageerista iyo xoojinta wada shaqaynta ay la leedahay Somaliland 13 November waxay shacabka Somaliland u dareereen inay doortaan madaxweyne cusub Ingiriiska oo ka mid ah deeq-bixiyaasha door firfircoon ayay ka ciyaareen taageerista qorshaha guddida doorashada Somaliland diyaarinta iyo qabashada doorashadani 16 November kooxdii caalamiga ahayd ee kormeereysay doorashadu waxa ay warbixin hordhaca ku cadeeyeen inaanay arag waxyaabo sharci darro ah oo badan oo waxyeeleyn kara natiijada doorashada Ingiriisku waxa uu ku biiray saaxiibada caalamiga ee si weyn uga murugooday geerida ay sababeen mudaharaadyo rabshado wata oo meelaha qaar ka dhacay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada 21 November guddida doorashadu waxa ay ku dhawaaqeen in Mudane Muuse Biixi Cabdi ay shacabka Somaliland u doorteen madaxweynahooda dambe safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa u gudbiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hambalyo diiran oo ah doorashadiisa waxaanu aad ugu riyaaqay ballanqaadka iyo mas'uuliyadda musharaxiinta mucaaridka ah shacabka Somaliland iyo hay'adahooda doorashada ee xoojinta nidaamka dimuqraadiyadda Ingiriiska waxa ka go'an caawinta guud ahaan dadka gobolada Soomaalida si ay u gaaraan doonistooda waxaanu doonaynaa inaanu si adkayno wada shaqaynta aanu la leenahay Somaliland annaga oo madaxweynaha la doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi ka taageerayna rumaynta himiladiisa ahayd inuu maamulkiisu noqdo mid u faa'iida dadka Somaliland oo dhan ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka Cali Maxamed Xuseen Saab TV Hargeysa